وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حلنا إن شاء الله تعالى درسي تفسيرك سورة الحجرات. سورة الحجرات waxaan ka bilaabaynaa in sha allah aayadda 14aad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى waxa uu yidhi qaalat الأعراب qaalat waxay dhahday oo yidhaahdeen alأعraabu reebaadiyihii waxay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay dhaheen. qaar reebaadiyaha ka mida waaye, sida ilaahay suura tooba ku sheegay reebaadiyu inaan isku mid ahayn oo qaar toosan ay ku jiraan. qaalat waxay yidhaahdeen alأعraabu reebaadiyihii aamanaa waa rumaynay dhaheen. qul waxaad ku dhahdaa nebiga alle muxamedow sala allahu caleyh wasalam, lam tu'minuu ma aadnaan rumayn, walaakiin ha yeeshee quuluu waxaad dhahdaan aslamnaa waa hoggaansannay, waa isdhiibnay dhaha. walamaa yadkhul weli ma gelin aliimaanu iimaanku fii quluubikum quluubtiinna ma gelin. ha odhanina waa rumaynay, waxaad dhahdaan waa hoggaansannay oo waa islaannay oo waa isdhiibnay. iimaanku walamaa walxaal ka xaalay walamaa walxaal aad saa leedihiin aad dhahdaan lamaa yadkhul weli aanuu gelin, inuu iimaanku geli doono ayaa lamaadaa laga faa'iidaha yidhaahdeen culammadu. walamaa yadkhul aanuusa weli gelin aliimaanu iimaanku fii quluubikum quluubtiinna dhexdeed aanuu gelin. qolooyinkan yay ahaayeen? ma waxay ahaayeen dad munaafiqiina oo diinta islaamka sheeganaya? culammada qaar saasay dhaheen, sida imaam bukhaari oo kale raximahullah, munaafiqiinay ahaayeen buu leeyahy. culammada qaar waxay yidhaahdeen maya, dad muslimiin oo islaamkoodu daciifi oo ahaayeen oo waxay sheegteen derajada iimaanka oo islaamnimada ka sarrayday sheegteen. darajooyinka diintu waa 3: alislaamu huma aliimaanu huma alixsaanu. waa iimaankii iyo islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka waaye. laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxun fiima طacimuu idaa ma اتaqوا waaamanuu wacamiluu الصaalixaat ثuma اتaqوا waaamanuu ثuma اتaqوا waaxsanuu wallahu yuxibu almuxsiniin. marka darajadii dhexe ee iimaanka ahay sheegteen, taabaa loo diiday. inay munaafiqiin yihiin oo gaalo ah oo islaam afka ka sheeganaysa ma aha ay leeyihin culamada qaarkood. ayib, alla wuxuu yidhi wa in tutiicuu haddaad hoggaansataan allaha ilaahay aad u hoggaansataan oo alla aad adeecdaan, iyo wa rasuulahu ilaahay rasuulkiisa aad u hoggaansataan, laa yelid ma nuqsaaminaayo, kum adinka idinka kala dhimi maayo, laa yelid ma kala dhimaayo ilaahay kum adinka acraabow min acmaalikum acmaashiina shay-an waxba ka kala nuqsaami maayo. haddaad ilaahay rasuulkiisa adeecdaan, ilaahay waxba acmaashiina ka kala dhimi maayo. ina allaha maxaa yeelay allah ghafuurun alla dembi dhaafooda badan wey, raxiimun alla naxariis badan. inama almu'minuuna, inamaa in kale maahee, almu'minuuna mu'miniinta oo iimaankoodu dhammaystiran yaha wey, aladiina kuwa way aamanuu rumeeyeen billaahi ilaahay rumeeyeen, iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ilaahay rasuulkiisa rumeeyeen. ثuma dabadeedna markay rumeeyeen ilaahay rasuulkiisa kadib lam yartaabuu aan shakin, wajaahaduu jihaadeen biamwaalihim maalkooda ku jihaadeen,
iyo wa anfusihim nafsadooda ku jihaadeen fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa kula jihaadeen ulaa'ika kuwaa la tilmaamay ee ilaahay rasuulkiisa aaminsan kadibna aan shakinin ilaahay jidkiisa kula jihaadeen waxay lahaayeen naf iyo maalba hum iyaga ah assaadiquuna kuwa runta sheegay saadiqiinta kuwa runloogayaasha iyaga ah qul waxaad dhahdaa nebigu alle muxamedow sala allahu caley wasalam atucallimuuna ma waxaad u sheegaydiin oo aad baraydiin nimankan acraabta ahow allaha ilaahay miyaad baraydiin bidiinikum diintiin ilaahay miyaad diintiinna uga warramaydiin wallaahu alxaal allaahu alle qul waxaad dhahdaa nebiga alle muxamedow calayhi salaatu wasalaam nimankan ku dheh acraabta atucallimuuna ma waxaad baraydiin oo uga warramaydiin allaha allah bidiinikum diintiin walxaal miyaad saas yeelaydin oo ilaahay diintiinna uga warramaydiin allaahu alla yaclamu uu ogyahay maa shay uu ogyahay fi samaawaati cirarka ku dhex sugan iyo wamaa shay uu ogyahay fil ardi dhulka wax ku sugan isagoo allaah wax walba oo cirar iyo dhul ku sugan og miyaad uga warramaydiin ilaahay diintiinna wallaahu alle bikulli shay dhammaanteed caliimu ilaahay ku cilmi badan wey wax walba ilaahay waa ku cilmi leeyahay wax ka qarsoon ma laha wixii dhacay iyo waxa dhacaya iyo waxa dhici doona iyo waxaan dhici doonin iyo waxa aan dhici doonin hadday dhici lahaayeen siday u dhici lahaayeen intaba ilaahay waa iskugu mid subxaanahu watacaala waa ku cilmi leeyahay yamunuuna waa gallad sheeganayaan waa nicmo sheeganayaan calayka adiga kugu manno sheeganayaan adiga ayay kugu dan sheeganayaan maxay kugu dan sheeganayaan kugu nicmo sheeganayaan kugu manno sheeganayaan an aslamuu inay islaameen ay liajli an aslamuu inay islaameen daraaddeed innaga waa islaamnay ma ogid miyaa saasay ku leeyihin nebigu calayhi salatu wasalaam muslimiinaana innaga waa rumaynay leeyihin mu'miniinaanahay leeyihin waa hoggaansanay leeyihin saasay leeyihin iyagoo raba inay ku muujiyaan inay nebiga sala allahu caleyh wasalam asxaan u sameeyeen inay diinta soo galeen qul waxaad ku dhahdaa nebiga alle muxamedow calayhi salaatu wasalaam laa tamunnu ha manna sheeganina calaya aniga ha igu dan sheeganina islaamakum islaamkiinna aniga ha igu manna sheeganina bale allaahu ilaahay baa inaad aniga igu manno sheegataan iska dhaafi allaahu allah baa yamunnu nicmo sheeganaya manno sheeganaya calaykum dushiin an hadaakum liajli an hadaakum inuu idin hanuuniyo daraaddeed liliimaani iimaanka idinku hanuuniyey in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya iimaankan aad sheeganaysiin run ma aha ee hadduu run ahaan lahaa rasuulka ilaahay inaad ku manno sheegataan oo sidii inaad asxaan u samayseen ma ahayn ilaahay subxaanahu watacaala ayaa manno mudan oo nicmo sheegasho mudan hadduu iimaanka idinku hanuuniyey waase haddii aad runka sheegaydin marka qofku inuu tooso ilaahay diintiisa ku tooso inuu dareemo maaha inuu cidna asxaan ugu sameeyey oo cidna muxuu ahaa uu xaq ku leeyahay bal waxaa laga rabaa inuu ilaahay uga mahadnaqo subxaanahu watacaala hanuuniyey oo nicmadaas siiyey khalqiga intooda badan laga qariyo mataqaanaa ay garab mareen ina allaha alle yaclamu waa ogyahay ghayba samaawaati cirarka waxa ku maqan iyo walardi dhulka waxa ku maqan yacni makhluuqaad kaga maqan waayo ilaahay subxaanahu watacaala wax ka maqan ma leh wax ka qarsoon alle ma leh ee waxa makhluuqaadka ka qarsoon ee cirar iyo dhul ku qarsoon ilaahay baa og makhluuqaadku waxbay ka ogyihiin wax cir iyo dhul ku sugan ee ma wada oga ma jiro malagaba allaha ka dhigo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam allaha ka dhigo cid og cir iyo dhul wax kastoo ku jira ma jirto aan alla ka ahayn ujeeddaa malag waxbuu ka ogyahay dadku waxbay ka ogyihiin
موجود هذا أنا وسو ولا عن درسي اللي جيسنا هور فدي سو مو أوجي وأوجي أيقونوا يوجي مركب وحوم بعد أدي أكته لكن ميان قرنينا أو حكدم بيا اسمهان أو اسمها وحدين عكلا كجيرة ما قرنين ملك وصاصو كلا اسمه وحبو أوجي لكن عيد مخلوقة وحكو كوابتي وحكستو عيري للكجيرة بجرتو إلهم باو سيد إلهي آيات كالكوير قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ده ما أوجا عيرك يقولك وحا كجيرة أو كو قرصون الله إذا هين مرك إن الله ألا يعلم وأوجا غيب السماوات سماوات كوحا كو قرصون كو مقن أو غيب كوه يعني عن الخلق خلق مخلوقات وغيب كأوي إلهي إنه وحا غيب والأرض يدلك أوجي كو مقن والله ألا بصير الله أركوي بما شيء تعملون آسمين إذين وحا آسمين إذين إلهي سبحانه وتعالى وامدك كو علم قاله كفر صدوي بسم الله الرحمن الرحيم سورة قاف ومكية قرآن كمفصل كالإرادة أي أهر ريدا علماء قالوا حليهين سورة حجرات أي أهر ريدا إليهم قرآن كمفصل كا القصة قرآن كمفصل كا علماء قالوا حليهين قاف أحوق بدن أهر ريس حجرات كتر سنتا قرآن ككله قول كاسين علماء قار حوجنا يعني محايا للصحابة قرآن كوحي أقيب جيرين تضوى قيبوت سدح سورة وجه الرئيسة قرآن كواقيب شنتا كوحك تواقيب تضوى كوحك تواقيب سغالك سورة كوحك تواقيب كوي تونك سورة كوحك تواقيب كوي تونك الحجرات كل ماتا وجد سدح شن تضوى سغال كوي تون أنت مركز شنو ما شيء سدح شن تضوى سغال كوي طبعا صح تسوى شنواي لحي وقيب جرميها المهم مركا انتان كلا وقصار سورة مفصل كالي هذا قصار المفصل ككوس مفصل ككوس سير يرنا حقيقة قبل العوضان سورة قيب تدبع المقصود مركا قاف هي محوها أي سورة كمفصل كالي هذا أي قبل العوضان قاف باور بسم الله الرحمن الرحيم قال إلهي وحول بسم الله إلهي سبحانه وتعالى مقعيسة أيان كبلابن إن الله الرحمن نحريستا بدن الرحيم نحريستا والرحمن صيغة فعلان صفة وحوي ذاتية إلهي سبحانه وتعالى نحريس بدن رحيمنا وحويان إلهي بعد مدي سؤال نحريستا قاف وإلهي قاف الله أعلم بمراده إلهي باكو علم له حرف قافك معنيس إلهي سبحانه وتعالى معنى إليه سقاكو علم له وحايا إليه وحيد علماء كلمة دان قاف وحرف عربية عربت معنى أمالها إياك أكتود مركا داني كلمة معنى عربت أولهين حرف عربي نيهين حروفتي معناها لا أنا كمدهين ما يقانان الله أعلم بمراده إلهي باكو علم له وحوقدا ليه علم قارن واد دالان ووحي قرآن كي ويد دالان وإيغان وحليين حروف المقطعة حروفتان صورتها قاركو إلهي كب الله إيه حرفها سيدا قافك نونك ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم طاسين حاميم إيو كوالا متكا وحلو قدا ليهي إن لغو موجيو قرآنكو إنو يا إلهي هذا الكيس ووحال ليه عربو قرآن كان هدانو هذا الك الله هين
wuxuu ka kooban yahay xarfaha aad ku hadashaan sida qaafka iyo nuunka iyo cayn siin qaafkii xarfihii uu ka kooban yahay ta xarfaha isu gegeydaan qur'aankoo kale la imaada dad la imaa weydiin ogaada haddaba waa hadalkii ilaahay hadal ma aha saad ku andacoonaydiin hadal bashar maaha waxay ku xoojiyeen fahamkaas suurad kasta oo xuruuf almuqataca lagu bilowday ilaahay qur'aanka uu kaga hadlaa tanaa ka mida waa ujeedaa qaaf walqur'aani almajiidu ilaahay qaaf walqur'aani qur'aankiian ku dhaarto ilaahay yidhi qur'aankii almajiidi sharafta badnaa qur'aanka sharafta badan walqur'aani qur'aankan ku dhaartay qur'aanka almajiidi sharafta badan qiimaha badan qaayaha badan jawaab alqasamkii aawe latubcathunna waa laydin soo saaraa qur'aanka sharafta badan baan ku dhaartay waa laydin soo saaraa waa laydin soo bixinaa qiyaamo waa laydin keeni suuradda marka ilaahay wuxuu kaga warramaa qiyaamadu inay xaq tahay intaasoo daliil oo kala duwan oo naqli iyo caqli ah qofkii ilaahay hadalkiisa rumaynaana ku filan qofkaan hadalka ilaahay rumaysnayn laakiin caqligiisa fayow adeegsanaana ku filan ayuu ilaahay ku tilmaamay inay qiyaamo jirto marka waa laydin soo saara bale soo saaridda ina aaminaan iska dhaafe cajiibuhu way la yaabeen an jaa'ahum inuu u yimid daraaddeed an jaa'a ay min an jaa'a inuu yimid hum iyaga u yimid kuwan gaalada mundirun mid digaaya mundirkaasoo minhum iyaga ka mida faqaala waxay yidhaahdeen alkaafiruuna gaaladii waxay dhaheen haadaa kani shayun shay wey shaygaasoo cajiibun la yaab badan qur'aankay waxay dhaheen wax la yaab badan aidaa mitnaa wa kunnaa turaaban aidaa ma marka mitnaa aan dhimanno wa kunnaa ahaano turaaban ciid anubcathu hay anubcathu mana la soo saaraa idaa mitna idaa marka mitna aan dhimanno wa kunnaa aan noqonno turaaban ciid daalika arrinkaas soo saarkaas markaan dhimannoon baaba'noon ciid noqonno kadibna soo saara rajcun waa soo celin baciidun fog bay dheheen suurtagalba maahay dheheen markaan dhimanno een ciid noqonno in nala soo saaro dib naloo soo nooleey waa arrin fog bay dheheen ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqda calimnaa waan ognahay maa shay baan ku cilmi leenahay tanqusu ay ka naaqusinayso alardu dhulku minhum iyaga waxa dhulku uu ka naaqusinayo ayaynu ognahu leeya ilaahay subxaana wa tacaala marka gaaladan iyagaa ilaahay subxaana wa tacaala caza wajal isaga qiyaas qaatay iyaga wixii aan ka suurtoobin ayay u moodeen ilaahay subxaana wa tacaala inaanu awoodin qofkii bani aadamka ah ay arkayeen markuu dhintay jirkiisii dhulkuu galay waa u jeedi waayeen jirkii waxay u moodeen mar haddaan iyagu u jeedin ilaahayna subxaana wa tacaala inaanu u jeedin marka ilaahay tilmaamay waxa dhulku qofka ka naaqusiyo ilaahay waa ku cilmi leeyahay oo jeeda jahligay ka mid tahay qofku wuxuu isagu arki waayo uu garan waayo uu maqli waayo inuu u moodo inaan ilaahayna maqlayn ilaahayna arkayn ilaahayna garanayn waa jahli qofaan ilaahay aqoon wa ilaahay bikulli shayin caliim wax walbuu ilaahay ogyahay ka waran diyaarad hadda halkaa ka haada aad u weynin badanood garanayso dhowr boqoloo qof sida ama markab ka weyn oo kumaan kun sida hadduu kaa ag dhaqaajiyo muddo kadib arki mayd markabka waa sii yaraana diyaaraddii waa sii yaraana shimbiray u sii ekaanay marka dambe waa kaa libreeba maba arkaysid diyaaraddu ma jirta miya marka way jirtaa markabka ma jira miya waa jira ee adaan arkinoo waxa weeye aragtidaada xadidan markab weyn iska dhaafe hadda qalab waxaa la isticmaala lagu eego biyahaas waxa ku jira markaabaa lagu leeyahay malaayiin makhluuqaadaa ku jiro socdaa lagu tusina
soo sax ma marka waxay u moodeen iyagu marka indhahoodan wejiga ilaahay ugu abuuray ay wax ku arki waayeen qofkii dhintay jirkiisa inuu lumay u moodeen qofka ilaahay wax walba u jeedaa wax walba ku cilmi leeyahay marka waa daliil caqliya waa qad xaqiiqda calimna waa ognaa maa shay tanqusu ay ka dhimayso alardu dhulku minhum iyaga ka mida kaas waa daliil labaad waa cindanaa agteennana waxa uu ilaahay yiri kitaabun kitaabkaasoo xafiidun wax xifdiya sidoo kale cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala ka sokow xataa kitaab waxaa jira ilaahay uu ku qoray qofkaas iyo wax uu ka kooban yahay oo xubin kastoo qofkaa ka mid ah kitaabkaasaa laga helaa waa qaab kale oo waxa weeye wax lagu ogaanayo haddaad tagto dukaamada waaweyn ee waxyaabaha yarka musaamiirta iyo iibiya waxyaaba aad u yaryar iibiyaan oo malaayiina haddaad u tagto qofka iibiya miyuu garanaa maskaxda muu ka garanaa maya buugu haystaa haddana kombyuutar haystaa waa eegaa magaciiu gelina waa loo tilmaamaa musmaarka noocaasa nambarkaas leh wuxuu saaran yahay qolkaas meel hebla meeshaasuu saaran yahay soo socda u tagaa soo qaadaa kitaabay ku yaallaan wixii buug fahimta walala wa cindanaa wa ilaahi marka innaga agteenna unbuu ahaaday waa dharfi la taqdiimiya yufiidu alxasr innaga agteenna unbuu ahaaday kitaabkaasoo xafiidun wax kasta xifdinaya xafiid ah ilaalinaya wixii kitaabkaas nebigu ma yaqaano calayhi salatu iska dhaaf cid kale maxaa yeele waxaa ku tusinaysa waa cindana innaga agteenna kitaabun ay kitaabun xafiidun cindana khabarkiya la taqdiimiya yufiidu alxasr innaga agteennu kitaabkaa yahay buu ilaahay leeyahy cid kale lanama haysato suufiyana qaarkood waxay ku leeyihin nebigaa loox maxfuudka daalacda faina min juudika addunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami ku leeyihin deeqdaada qayb ka mida waxaa ah adduunya aakhiraba rasuulka ila hadlayan calayhi salatu wasalaam yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi aa ka horaysa makhluuqa kan ugu sharafta badano maa liman aluudu bihi iima sugna cidaan magan galo siwaaka adiga mooye cinda xuduuثi alxaadith alcamam dhibaatada waaweyn markay jirto cid aan adiga ahan u carara ma leh rasuulkiisaa ku leeyihin calayhi salatu wasalaam been badana rasuul ammaanay u moodaan waxaas inay yihiin way sii wadan waxay leeyihin faina min juudika addunya wadarataha deeqdaada waxaa qayb ka mida addunya aakhiro wa min culuumika cilma allawxi waalqalam culuumtaadana waxaa qayb ka mida cilmiga looxa iyo qalamka loox maxfuudka cilmka lagu qoray ee ilaahay qalinka yiri uktub maa huwa kaan ilaa yowmi alqiyaama qor wax kastoo ahaana ilaa qiyaama laga gaaro in allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iq wax kasta oo ilaa qiyaamada qor ah ilaahay amar qalinka markaasuu qoray qalinkaas wuxuu qoray iyo looxaas loox maxfuudka waxa lagu qoray cilmiga aad taqaana qayb ka mida waayay leeyihin nebiga sala allah alay salam beenta intaa la eg fiiri loox maxfuudka dhan aad taqaano rasuulka maxaad kula yaabe wadaadadooda kuwii weliyada leeyihiin bay waxaa u sugan waxay leeyihin sheekh cabdiqaadir jeylaani wuxuu yidhi wa aclamu cilmallaahi uxsii xuruufahu wa aclamu mawja albaxri kam huwa mawjatu wa aclamu waxaan ogahay cilmallaahi ilaahay cilmigiisa oo dhan waa mufradun mudaafi cum culuumta ilaahay oo dhanan garanaa haye waa la sii wuu sii adkeeyey leeyihiinoo uxsii waa kooba xuruufo xarfadiisa cilmiga ilaahay xaraf xaraf aan u aqaan xataa maaha kelimad maaha jumlad guud maaha macno guud ma ah xaraf xaraf aan u aqaan cilmiga ilaahay oo dhan wa aclamu mawja albaxri waxaan garanayaa hirarka badda kam wa mawjatu inta hir buu yahay baddan waxa badweynta indiya iyo atlantiga iyo waxa hir isdhaafaya halhalan u aqaanu leeyahy ka imaw wa aclamu ramla alardi kam huwa ramlatu ciidda dhulka imise ciiday tahay waa ay tirsantahay subxaana allahi wabixamdi subxaanallah sheekh cabdiqaadir jeylaani aa lagu leeyahy wadaaddo waxaan daaya daad tiraahda waraabayaalo wadaaddo maahane waxaan daaya waxaa loo wahaabiyaa tahay timiraad ka soo gorata sacuudiga iyadiiad cuntaa waliyaa timirta u diida dee cunayaan maya waxaas been waa qof muslim waxaas ma qorin masaakiin waa qofku haddaanu lahayn waxaan maxaa daliil u ah asalka haddaan lagu tarbiyeyn ruuxan diin ma tahay waa inaan daliil uga helo qur-aanka iyo sunnada ma lagu tarbiyeyn
sheekh hebelaa yiri khalaas sheekh hadduu yiri aduu maxaa tahay sheekh waa kaa yaqaanaa adi been waaye suufiyada waa saxsanta boqolkiiba boqol culimmada saa dhahay suufiyada shiica ka dambaysa shiicadana kirishtaanka ka dambeeya yuhuudda hubaal wey anu waa ogahaba waxaa jira ardayan jaamaca almadiina isla dhigi jiren jaamaca alislaamiya waxay ka soo qaxeen soomaaliya jabuuti u yimaade markuu jabuuti yimid ayaa hooyadiis waxay tiri maandhow alaabta aan soo rarnay kala saar waxaa ka mid ahaa marka khariidad maab oo kale ah markaan furay waxaa ku yaala silsilad hooyaan u keenay allah hooyo waxay tiri waa wixii laygu khaliifa baycadii laygu khaliifay waay bayca ay ku jirta suufiyada baycada waxaa ku yaala marka iyada oo la siiyey baycada aabbaheed wiilka aabbihii ah muxuu ahaa awowgii saas camal ah ilaa sanadkii waxay galaan ithnaa cashariyada shiicada sanadkeeday galaan raafidada sanadkooda ujeeda marka waxaasaa ku yaala washaahadtu maa fawqa asamaawaati kulliha kada alcarshu walkursiyu fii tayi qabdati kitaabkaa ku yaala sheekh cabdiqaadir jinaan yiri waxaan daawaday cirarka samaawaadka todobada wax ka koreeya dhammaantood carshiga iyo kursiga ilaahayna cantoobadeedu ku jira ka waran sax way u sii akhreen dadaan aqoon lahayn ayay heleen caqli fayowna aan lahayn markaabay waxay sameeyeen marka hore waxay ka dhaadhiciyeen sheekhan waa kaa aqoon badan yahay waxba ma taqaanid bas kam kunay leeyihiin amaama sheikhika sheekhaaga hortiisa waxaad noqotaa kalghaasili amaama meyitii sidii qofkii meydka dhaqaayey kii dhaqaayey qofka meyd duu dhaqaayo dhinacu doonu u jeediyaa sheekhaaga saas noqo bariga kofardu kuu diro saas yeel acuudu billahi min ashaytaan islaamka waxaas ma qabo islaamka nabiyullaahi maxamed calayhi salaam saxaabadiisa uu diray mid buu amiir uga dhigay amiirkayga yeeloo yiri warkiisa waa baxeen meel dhexe markay marayaan yiri qoryo keena dab shida markuu dabka huriyo yiri gala see u galahayna dhabka nebiga ma dhihin buu yiri calayhi salaam adeeco dabka gala nebiga waxaanba u rumaynay dheheen inaanan dab gelin see dabka u gelaynaa markii nebiga loo sheegay calayhi salaam wuxuu hadday geli lahayn kama bixin dabka hadday geli lahayn kama bixin marka nebiga aad rumayday calayhi salaatu wasalaam indhala'aan kuma rumayne xujaad ku rumay daliilaad ku rumay waxa uu kugu yeeraa xaq ah waa wax saxa ood fahmi kartid moo jeeda maaha caqiidada kirishtaanka saddex xal waaye iska laqlaq saas maaha fahmi ma kartid ilaa aad laqdo saasay ku leeyihin aan laqa horta marka hore almuhim marka ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqda calimnaa waa ognahay maa calimna waan ognahay maa shay tanqusu ay dhimayso alardu dhulku minhum iyaga ka dhimayso wa cindanaa agteennana waxa ah laa cinda gayrina kitaabkaasoo xafiidun xifdinaayo bale kadabu waa beenin bilxaqi xaqiyay beenin lama markii jaa uu yimid xaqi hum iyaga u yimid oo fahum iyagu fii amrin arrin bay ku sugan yihin arrintaasoo mariijin isdhex yaacsan iskhilaafsan dad ma aha cilmi ku sugan hadba waxbay leeyihin mar waa waalanyay leeyihin nabi sal slam mar waa gabyaabay leeyihin mar waa waxay leeyihin in hada ila asaatiiru alawaliin ummadii hore wax laga soo qorqoro waaye mar waxay leeyihin mataqaana adduunyuu rabaa hadba waxbay sheegayaan ma qof gabyaa iyo qof waalana isleh ya ilaahay wuxuu afalam yanduru waa daliil kale oo tusinaya bacthiga isu soo saarku inuu jiro afalam yanduru miyaana eegin ila samaa'i xagga kore samada miyaana eegin afalam yanduru miyaana eegin ila samaa'i samada miyaana eegin fawqahum xaala ay tahay dushooda ka xaal allah caza wajalla wuxuu afalam yanduru miyaana eegin ila samaa'i samada miyaana eegin fawqahum xaal ay tahay dushooda kayfa sida miyaana eegin banaynaa aan u dhisna haa samadii wazayannaa aan u qorxinno haa samadii wamaa laha aanay u lahayn min furuujin wax duldulaala miyaanay samada eegin samadaan ka korayda sida aan u dhisnay
una qurxinay ee wax dhaliila aanay lahayn miyaana eegaynin marka waa daliil caqli la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaasi samaawaadka iyo dhulka abuurkooda ka weyn dadka abuurkiisa marka ilaahayga subxaanahu watacaala cer iyo dhul abuure bani aadamkan yar waa abuuri karaa ilaahay saa waa daliil caqliya waalarda madadnaahu ilaahay yidhi wamadadna waa fidinay alarda dhulka madadnaa waa fidinahaa dhulki wa alqaynaa waa ku ridnay fiihaa dhulkii rawaasiya buuraan ku ridnay wa ambatnaa waa ka soo saarnay fiihaa dhulkii nabaatan u qadar dhir baan ka soo saarnay dhirtaasoo min kulli zawjin nooc kasta ka ahaaday dhirtaasoo bahiijin qurux badan dhir qurux badanna waa ka soo saarno ilaahay dhulkii waa daliil kale wa oo dhulkii meyidka ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka soo saaray caza wajal geedkaas iyo ubaxaas iyo waxaas kala duwane faraha badan sidaas si lamidaana dadku markay dhintaan marka ilaahay amro roobuu soo daynaa ilaahay sida biyaha oo ragga oo kale ah markaabaa oo ku soo dhalana qofka jirkiisii markuu qofka jirkiisii dhammaystirmo qabriga ku dhammaystirmo sidii markii lagu abuuray ayaa nafta ayaa matqaasa malaku israafiil baa ilaahay amraa inuu buunka yeeriyo wax afuufo waxa uu afuufaayo naftii makhluuqaadka ku jirta markaasaa naf walbaaba jirkii abuuraay bay geli sida ilaahay ba ilmaha caloosha hooyada markay ku jiraan ilaahay qofku u abuuro ilmaha yarka caloosha hooyadu 9 bil ama 8 bil ama ka horba 4 bil 4 bil marka ilaahay ilmaha dhammaystiro kadib ilaahay malag u soo dira nafta ku afuufa marka hore jirkaa dhasha al abuura nabiyullaahi aadamna saasa ilaahay u abuuray dhulku ilaahay ka abuuray aadam waa dhammaystiray kadib ilaahay naf ku afuufa janiinka caloosha hooyada ku jira ilaahay waa dhammaystiraa kadib naf lagu afuufa qiyaamadana waxa waaye qabriga qofkii ku jiray jirkiisa ilaahay dhammaystiraa kadib naf lagu afuufa waxba kuma kala duwan marka ilaahay uu ambatnaa waa ka soo saarnay fiiha dhulkii nabaatan dhir baan ka soo saarnay min kulli zawjin dhirtaasoo min kulli zawjin nooc kasta ka ahaaday zawjkaasoo bahiijin qurux badan tabsiratan caddayn aan caddaynayno iyo wadikraa waani xasuusin aan xasuusinayno likulli cabdi addoonkaasoo muniibin noqod badan oo toobadkeen badan wanazalna waa ka soo dejinay min asamaa xagga samada maa biyaan ka soo dejinay biyahaasu mubaarakan barakaysan oo fa ambatna waa ku soo saarnay biyihii jannaatin dhir baan ku soo saarnay iyo waxabba alxasiid ay waxabba zarci mawsuufku waa la xadfiyey sifadii xasiida booskeeda la dhigay waxabba zarci geedka xabadiisa geedka alxasiida ay almaxsuudu la gurto ayaan ku soo saarnay geed la gurtana biyihii waa ku soo saarnay wanakla geed timireedkiina waa soo saarnay baasiqaatin xaal ay tahay mid waxa weye laamaheedu ay fidsan yihiin xaala muqadara la yidhaaho marka ay soo baxeedo laamaheedu ma fidsanee way ahaan doontaa laha waxaa u sugnaaday geed timireedkii dalcun mira u sugnaaday curdun ah markay cusub yihiin waa nadiidun ay mutaraakibun issarsaaran risqan ay marzuuqan xaalayo mid lagu quudinayo lilcibaada addoommada lagu quudinayo waxyaynaa waa noolaynu ilaahay biyihii baldatan dhul baan ku noolayn dhulkaasoo meytan dhintay kadaalika sidaasoo kale aan dhulka u soo noolayn dhirta u abuurnay ayaa alkhuruuj soo bixitaankuna ahaaday kadabad waa beenin qablahum kuwaan hortood mushrikiinta carbeed wey qowma nuux qomadiisaa beenin wa asxaabu rasi ceelka asxaabtiisaa beenin ras waa ceel waay yay ahaayeen ma qowma shucayba ma qolo kala culummadu way yidhaahdeen wa asxaabu rasi ceelka qoladiisiibaa beenin wathamuudu thamuud baa beenin wa caadun caad baa beenin wa fircawnu fircawn baa beenin wa ikhwaanu luut walaalihiis baa beeniyey wa asxaabul ayka jiqda iyo howdka asxaabtiisaa beeniyey nabiyullaahi shucayb kuwii loo dira wey wa qowmu tubac qowmkiisaa beeniyey yay beeniyeen rusulahum rusushooda halka u qadar kadabadii wa waxaasoo dhan rusushooda waa beeniyey kullun dhammaantii kadaba waa beeniyey arrusul rususha fa xaqa waxaa sugnaado ilaahay oo dhaboobay waciidii ay waciidii goodintaydii ballantaydii afa cayiinaa miyaan ku daalnay bilkhalqi waa daliil kale waa daliil kaloo tusinaya qiyaamada waxa weeye kuwii beeniyey rusushaa lasoo sheegay ilaahay waa baabi'iyey
inay run sheegayeen rusushaas ayay daliil u tahay markay dhaheen qiyaamaa jira. maxaa yeelay ciddii beeniday ilaahay waa baabi'iyey, miduu dabaylo ku baabi'iyey, miduu badda laqsiyey, miduu mataqaana ceriya dhul biyo uga furay, miduu qaylo ku sii daayay. rusushii qiyaamada dadka ugu yeertay in la rumeeyo kuwii beeniyey ilaahay waa baabi'iyey. taas waxay daliil u tahay qiyaamada inay jirto. waa daliil kale afacayina waxaan ku daalnay bilkhalqi abuurkii alawali horreeyey, bal hum iyagu fii labsin ay fii shakin shaki waxay kaga sugan yihiin min khalqin abuur jadiidin cusub. abuurkoodii hore miyaan ku daalno ilaahay leeyahay? markii horeba soo ilaahay kuma abuurin adoon jirin. haye ilaahay kuma daalin abuurkaa hore. waa daliil kale. waa ilaahaygii midkii gaalka ahaa intuu qof dhintay lafihiisa burburay yiri yaa abuura man yuxyi alcidaama wahiya ramiim. ilaahay wuxuu qul yuxyiha alladii anshaaha awwala mara. waxaad ku dhacda waxaa abuura kii markii horeba abuuraba. ujeeda ilaahay wuxuu walaqad xaqiiqda khalaqna waa abuurna al-insaana dadka wanaclamu waan ognahay maa shay tuwaswisu ay ku waswaasinayso bihi isaga nafsuhu nafsadiisu. ilaahay wuxuu qofka waa abuurna waxa nafsadiisu ku waswaasinayso ugu sheekaynaysana waa ognaho ilaahay. wanaxnu inaga waa malaa'igti ta'wiilna maaha. wanaxnu annaga aqrab uga dhow ilaahay ilayhi insaanka min xablil wariidi min xabli xariga xididkaa laga wadaa alwariidi halbowlaha ah ee waxa weeye wadnaha labadaa xidid ee qofka wadnihiisa dhiigga ku shuba. halkaasaan uga dhowna qofka hadduu ka go'o nafta horey ka go'aysa. id xilli aan uga dhownaya talaqaa ay qaadayaan almutalaqiyaana kuwa qaadaya yani qofka wixii ka qoraya malaa'igti wey canil yamiini dhinaca midig iyo wacanil shimaal dhinaca bidaxa qaciidun oo ka fadhiyaan malaa'igti wey. maa yalfidu kuma dhawaaqo qofku min qowlin oraah qowl kuma dhawaaqo ay qowlan ilaa hadduu ku dhawaaqo ladayga agti waxaa raqiibun mid ilaalinaya catiidun oo heegan ah. raqiibun mid ilaalinaya catiidun oo goobjoogo heegan ah inuu qofkan wuxuu ku dhawaaqo qoraayo. marka waa malaga sifadiisa waa midka midigta jooga iyo kan bidaxa saaran sifadooda ah raqiibun catiid ee sida Soomaalida u moodaa laba malag ma aha. laba malagoo raqiib iyo catiid la kala yaraa ma aha. ee malaga sifadiisa ah raqiib mid ilaalinaya qofka qorahdiisa oo ilaalinaya. catiidun waana mid heegan ah oo diyaarsan oo qofku hadduu wanaag ku hadlana kan midigtaa qoraayo, xumi hadduu ku hadlana kan bidixdaa qoraayo. hada wallahu aclam. sala allahu wasalam wabaarak cala nabiyina maxamed wa alihi wasaxbi ajmaciin.